subax wanaagsan. saaka waxaan u jeclaystay inaad halka isugu timaadaan inaan idinkala hadlo waxyaalaha aan isleeyahay danta caamka ah waxay ku xiran tahay shaqadiina iyo ragga badidiisa waxaa suuro gasha inaanu iska naqaan bannaanka laakiin cadaalada ragga haya in haddana aanu wejiga iska baranno anigu inaan barto waxaa suuro gasha iyagu intooda badano inay yaqaaneen saad u tihiin dawladdu waxay ka koobantaa xubno badan oo xubnahaas badan mid walba haddii ay hawsheeda sida xalaasha u haysato dawladnimadii markaas ay suuro geli karto xubinta adinku aad haysaan waxay ka mid tahay xubnaha qiimaha dheer u leh dawladnimada suurowgeeda haddii aynan jirin ama aynan caafimaad qabinna ay dhici karto dawladnimadaasu mid magaca inay noqoto haddaynu maskaxdeenna dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa iyada oo dalkoo idinaba uu si u ba'sanaa oo si aan hufnayn us ahaa haddana dhutinta weynu waxay ku suurowday cadaaladda inayan sidii loo rabay aynan ahayn iyada oo sababuhu ay fara badan yihiin oo haatan qof khaasa aan la saari karin haddii aynan taasu dhicin cadaaladdu ay ku joogi lahayd amaba loo dayn lahaa hawsheedii inay sidii xaqa u qabsato ma ay dhici karin haba yaraata ee maamulkii xumaa oo dalka lumiyey dibna u dhigay hore u socodkii adduunkoo idil jiray taa waxaan u leeyahay haddeed wixii xumuuba sharci baa yaa ku fadhiya oo sharci baa jira baab qaban hayaa jira haddee baabka haddii lagu qabto waxay la tahay tuuga ma dhacdeen laaluushu ma dhaceen waxa haatan loo baxshay musuq maasuq ma dhaceen waxa saad u og tihiin nimankii khabiiriinta ahaa ay ugu yeedheen waa siyaasadda doonaysa oo beenta ahaana ma ay dhaceen wixii siyaasadu doonayso iyo waxayn doonayninna waa kala caddaan lahaayeen haddii sharcigu sidii loo soo dejiyey ama aynu kitaabada ugu dhigannay usu fuli lahaa taa yacni waxaan idinka xusuusinayaa habowgii hoggaanka dalku us habaabay hooyadiisii waxay ka mid ahayd ama waxayba ahaydba sharciga oo shaqadiisii aan qabsanin waxaa isweydiisla marka habowgaasu maxaa u sabab ahaa ma ragga qaaliyaalka ayaa u sabab ahaa mise waxa u sabab ahaayeen siyaasigii mise waxa u sabab ahaayeen nidaam xun oo dhashay maxaa u sabab ahaayeen waxaan odhan karnaa markaa sababuhu waa badan yihiin haddaba si aanan midna waxba ugu dhimin waxay ku hagaagsan tahay sababtu si kastaba ha ahaadeene cadaaladdu sidii qumanayd uma aynan fulin muddadii aynu soo dhaafnay maanta taariikhdeennu meel dheer bay ka soo bilaabatay laakiin 21kii oktoobar waxay furtay baal cusub maanta baalkaas cusub ayaynu wax ku qornaynaa isaguna waxa weeye wax walba dhabbihii xalaasha ahaa inay ku fulaan cadaaladdu waa inay ku fushaa qolada sharciga samaysaa waa inay ku fushaa qolada shaqada maamulka dawladduna waa inay ku fushaa shicbiga soomaaliyeed waa inuu ku fulaa nin shaqaaluhu waa inuu ku fulaa beerleydu waa inay ku fushaa xoolo dhaqatadu waa inay ku fushaa dadka tacliintu waa inay ku fulaan nin walba waddo cad buu leeyahay waddadiisa waa inay ku socdaan taasu waxay marka suuro gelinaysaa dad qoom ah oo dawlad ah oo socda oo sharaf leh inaynu noqonno ayay suuro gelinaysaa haddii qolaba dhabbaha xaqa ay ka leexato oo u weydaarato qolada kale dhabbaheeda wax walba markaa waa markay isku qasmahayaan kadibeedna waxay dhalaan ay tahay xumaan iyo musuq maasuqii foosha xumaan waxaan leeyahay marka bacdama intii revolutionka us dhacay amaba
dadka salabka sida ay xukunka dalka la wareegeen iyo intay dawladda dhiseen intaba aynan suuro gelin adinkoo khaasa inaan idinla hadlo saaka yacni sababteedu taas bay ahayd saaka ururkeennu ama aniga ujeeddaydu waxaa weeye mas-uulkii aada lahaydeen dhabarka inaan idinka saaro wax marmarsiinyaha oo suuro galaana inaynan jirin mas-uulkaasu waxaa weeye xubinta lafdhabarka ah xubnaha badan oo dawladdu ay ka koobanto adinka haysaan qaaliyaalka yaa hayaan meel kastaba ha joogeen shuruucdii waddanka lagu wadi lahaana giddigood waa dhigan yihiin oo mid aan oolino ma jiro ama ha noqdo midka casriga ha noqdo ama midka sharciga ha noqde mid aan dhignayno ma jiro waxaan idin weydiisanayaa inaad fulisaan sharciga oo sida xaqa aad u fulisaan waxaa caadada adduunka ama taariikhda aan ka akhrisan jirnay ama haddaanu dalalka adduunka aanu marno aanu la kulannaa munamentooyin waaweyn ama yacni sawirro waaweyn oo muxuu ahaa meelaha caasimadaha dawladaha hore u kacay ka dhisan oo ay u dhisan yihiin niman qaaliyaal ah oo geesiyaal ahaayeen oo la dagaalamay shubada ama laaluushka oo la dagaalamay cadaalad xumada oo la dagaalamay xataa madaxdooda oo ka hor istaagay dadkoodu amaba dalkoodu inuu waddo xun qaado oo iswaayo nabadgelyo ama cadaalad iswaayo annagu xaq baanu u leenahay raggaasu inay naga soo baxaan ku dagaalama cadaaladda geesiyaala aan ka baqin damaaciga adduunka kuwa hor istaaga tii xumayd oo qolada ahayd oo lala ordi jiray hor istaaga kuwa cabsi geliya hor istaaga waanu u baahanaa annaga naftanadu waana adinka hadda saaka iyo hor fadhiya ragga ku duuli karaa qiirada caynkaasa oo marka sharaf wanaagsan soo hoysan karaa mid haddii laydin fiiriyo adinka oo sharfaaya qaaliga ninka la yidhaahdaa qiimaha uu leeyahay ragga cadaaladda maamula qaarkood laakiin annagu kulli baan u naqaanaa ninkii haya muxuu ahaa cadaaladda fulinteeda mas-uulkeedu uu saaran yahay oo idil baanu u naqaanaa saa yacni waa u baahan tahay soomaaliya inay hesho wiilal noocaas ah oo taariikhda adduunka ah wax badan baan aniga naftaydu la kulmay ama akhristay qaali aada iyo aada looga baqo laakiin baqrintaasu ayaan ahayn inuu dad uleeyo baqrintaasu ayaan ahayn inuu muxuu ahaa wax kaleeto sameeyo laakiin haybadiisa laga baqo ka timid naqidda uu naqahayo sharciga oo uusan marnaba ugu asxaanfalaynin oo turjubaan xaq ah keliya waxaan idinka rajaynayaa baalkii cusba oo taariikhda soomaalidu ay ka bilaabatay aniga oo tixgelinhaya ama adinka oo ka bilaabahaya in aad shaqadiinna u gudataan sida fiican geesinimada ah wadaninimada ah islaamnimada ah waan sheegay maalin dhoweydna haatanna waan idinku celinhayaa annagu haddaanu nahay dadka sulubka sida ama hubka sida amaba guddiga sare oo muxuu ahaa revolutionka ka kooban ma doonayno inaad dadka noo xirtaan bilaash ma rabna annaga waxaanu dagaalkanagu uu ka koobmay cadaalad xumada inaan la dirirno sidaas baanaan u yeelaynin marka cadaaladda marka lagu cayaaro haddana inaanu magaca annagu sidno xumaantana dad kale ay sameeyaan taas ma yeeli mayno sharci naga xidhaayaana ma jiro meel lagu gabanayaana ma jirto ninkii ay ka dhab tahay ilaahay horti inuu dadkiisa xaq u xukumana waa midka aanu garab taaganahay waxa wanaaga uu mudan yahay aan marinayno midka musuq maasuqii maskaxdiisa ka fujin la'na ka aanu yeeli mayno in annaga ceebto ay noo timaado isaguna uu falo oo ceebta sameeyo taas ka yeeli mayno yuusan ku riyoon
taas waxay inoo kala dhigaysaa haddii kalsooni shaqadaada inaad ku qabsato ma rabno inaad naga baqdo ma rabno sekretariga cadaaladda inaad ka baqdo ma rabno inaad qolo kale ka baqdo damiirkaaga inaad ka baqdo waddankaaga inaad ka baqdo ilaaha inaad ka baqdo oo xaq aad marka ku fuliso taas baan kaa doonaynaa waxaanu doonaynaa inaad shaqayso oo saacadda u dhigan dowladda waxaa weeye halka saac ama 7 nin walba si u yaqaan in shaqada la tago in saacadda qayiman iyadana oo go'aan laga baxo ma ogolaan karno 5 saac nin shaqo tagaaya dadna u soo xoreysan yahay oo xabiska isugu jiro ma ogolaan karno muxuu ahaa midda la yiraahdo xorriyadda duminta ah oo laynoo dhigayna yeelimayno waxaan idinka doonaynaa Soomaali ahaan inaad gidiga u kacdaan oo shaqada aad u fulisaan faylalka badan oo iskor saaran meel walbaba dalka Soomaaliyeed oo dadkii iyaga muxuu ahaa faylalkaas ku saabsanayeen ay xariga ku jiraan taasna ma ogolaan karno oo qalad weeye awalan cadaaladii baad marka hore ku gafaysaa daasaas yeesho leesh qof insaan ah oo ilaahay abuurtay oo xornimadiisa aad ka qabatay meel kuugu xiran ayna fududahay in aad ama dambaad leedahay ama laguma la atraada midda labaadna waxayba u tahay cadaawad dhaqaalaha dalka la diriraysa nin bari la sii dayn doono in muxuu ahaa 4-5 bilood xarig ku jira taasuna waxa weeye cadal wadanimo hooyadeed bay ka bilaabanaysaa 5 bilood oo masruuf ah oo wax kale lagu qaban karay wax nin loo cunsiinayo iyaduna waa yaabkeed bay ku jirtaa haddii loo dhanba laga eego waxaan isleeyahay ninka xaakimka naftiisa waxay ku tahay cuqdad aan ka baxayn maxaa waay markuu